kadib markii maanta xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay xilka qaadis ku sameeyeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobadaareed ayaa waxaa la magacaabay guddi ka shaqeyn doonta doorashooyinka gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Abukaati Cabdicasiis ayaa magacaabay guddi ka kooban 7 xubnood kuwaas oo lagu amray inay si kooban oo dhaqso ah u soo qabtaan doorashooyinka gudoonka baarlamaanka. sidoo kale waxaa fadhigii maanta la sheegay in doorashadu ay dhici doonto Khamiista dambe oo ku beegan 14 November. gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Dhoobadaareed weli kama hadlin xilka qaadista ay ku sameeyeen xildhibaanada maamulka Puntland, waxaana si aad looga dareemayaa dhammaan magaalooyinka maamul goboleedka Puntland xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha baarlamaanka kadib markii maanta xildhibaan